Assalaamu calaykum caruurey sheeko cusub ayaa baranaynaa sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii cigaal shiidaad ee jiradii geedka sidan aynu ku bilaabanaysaa beri hore ayaa waxaa jiri jiray nin lagu magacaabi jiray cigaal shiidaad wuxuu ku caanbaxay fulaynimo dadka ayaa waxay ku yaqaaneen inuu xitaa ka baqo hooskiisa iyo hadday caleen yar dabeesha dhaqaajiso inuu fulaynimo la ordo habeenada ka mid ah ayuu safar habeenaad galay si uu dadka ugu muujiyo inuu yahay geesi sida uu u socday ayaa wuxuu arkay wax weyn oo geedna u eg libaaxna u eg cigaal wuxuu u maleeyay waxa meesha fadhiya inuu yahay libaax wadada fadhiya oo isaga gaadaya gaashaankiisii iyo warankiisii ayuu la soo baxay wuxuuna ku qayliyay wallaahi aniga libaaxow caawa ma ii dagi kartid geedna iskuma ekaysiin kartid ayuu ku qayliyay habeenkii oo dhan wuxuu ku jiray feejignaan oo wuxuu iska ilaalinayay libaaxa oo uu waardiye ka hayay laakiin markii waaga uu baryay ayaa wuxuu arkay wuxuu libaaxu maleynay inuusan libaax ahayn oo geed jiradiisa inuu waardiye ka hayay ayuu arkay oo habeenkii oo dhan uu ku dhafray markaas ayuu isku qoslay wuuna isku xishooday oo isku yaxyaxay wuxuuna yiri geed yahow waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin markaas ayuu sii sharxay warkiisii oo wuxuu yiri geed yahow waxaan ku mooday libaax waxaad se noqotay jirid waxaanse loo noqon doonin guura habeennimo ama safarka habeenkii inkastoo cigaal uu jeclaa inuu geesinimadiisa ugu faano dadkii deegaanka deganaa oo dhan oo ugu sheekay siduu iskaga difaacay libaaxa oo degmada xataa uu u difaacay oo libaaxu ka dhiciyay laakiin tan waxay sii xoojisay oo kaliya inay dadka u iftiimiso fulaynimadiisii oo habeenkii oo dhan uu dulfadhiyay geed dushiisa casharka laga baran kara ayaa waxay tahay in fulaynimada ay tahay sifo xun gaar ahaan haddaad wax walba ka baqdo adduunyada ma ku noolaan kartid waxba iskama dhicin kartid sidoo kale waxay muujinaysaa in inkastoo cigaal fulay u ahaa haddana uu isku dayay inuu mar uun muujiyo geesinimadiisii oo gudihiisa ay ku jirtay wax yar oo geesinimo ah caruurey ilaa sheekada dab aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته